wardayga saaxiibayaal Allah u naxariistay waxa hadii soo gaartay geerida Jarnaal Sheikh Axmed Cali oo caawa ku geeriyooday isbitaalada magaalada Muqdisho mid kamid ah kaas oo maalmihii la soo dhaafay lagu dabiibay geerida Jarnaalka ayaa timaaday kadib markii maalmihii la soo dhaafay Jarnaal Sheikh uu ku xanuunsanay mid kamid ah isbitaalada Muqdisho kadib markii laga helay Jarnaalka cudurka cagaarshowga loo yaqaan kaas oo ugu dambeyn isu bedelay dhiigga kansarka raaca ugu dambeyn Jarnaalka caawa uu geeriyooday goor sii horeysay wareysi kala duwan ay bixiyeen beesha uu ka dhashay Jarnaal Sheikh ayaa waxa ay ku hanjabeen in dawladda ay u hari doonin hadii Jarnaalka uu sidan u geeriyoodo balse ugu dambeyn Jarnaalka caawa uu geeriyooday waxaana laga wardhowrayaa talaabada xigta oo ay qaadi doonaan beesha uu ka dhashay Jarnaal Sheikh maadaama goor sii horeysay ay ku hanjabeen in dawladda federaalka aysan u hari doonin Jarnaal Sheikh hadii sidan uu ku geeriyoodo balse ugu dambeyn Jarnaalka waa uu geeriyooday caawa Allah u naxariisto jannadii firdawsana Allah ka waraabiyo Jarnaal Sheikh ayaa waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka xogta Soomaaliyeed waxaana darajada jarnaalnimo siiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo xilheentiisa 2012 ilaa 2016 Jarnaal Sheikh waxa uu kamid ahaa saraakiisha ciidanka xogta Soomaaliyeed balse ugu dambeyn caawa uu geeriyooday waxa uu u geeriyay xanuunka loo yaqaano cagaarshow oo uu soo bedelay xanuunka kansarka dhiigga raaca Jarnaal Sheikh ayaa waxa la soo xiray muddo 2 sano ka hor ah waxaana soo xirtay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ay ku weerareen guri uu ku lahaa magaalada Muqdisho halkaasna uu dagaal kula galay ciidanka dawladda Soomaaliya balse ugu dambeyn dawladda federaalka ayaa soo qabatay waxaana la geeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana xukun ku riday maxkamadda xukunka Jarnaal Sheikh ayaana gaaray muddo 10 sano iyo magdhow inuu bixiyo saraakiishii iyo askartii ku geeriyootay dagaalkii uu la galay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn Jarnaal Sheikh waxa lagu riday muddo xukun 10 sano ah balse intuusan dhameysan xukunka 10 sano ah Jarnaal Sheikh waxa uu ku xanuunsaday xabsiga dhaxe waxaana loo qaaday mid kamid ah isbitaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay lagu daweynayay balse ugu dambeyn asoo maxbuus ah caawa waxa uu ku geeriyooday mid kamid ah isbitaalada Muqdisho Jarnaal Sheikh mid kamid ah eelada sida gaarka ah u xiga Jarnaal Sheikh laguna magacaabo wasiir Shaasha oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabelle oo aan la xiriirin ayaa inoo xaqiijiyay geerida Jarnaal Sheikh balse wasiirka ku cudurtay inuu soo wareysi bixin karin ayaa inoo xaqiijiyay kaliya in Jarnaalka uu caawa ku geeriyooday mid kamid ah isbitaalada Muqdisho waxaana la rajeynayaa in Jarnaalka maalinta soo socota ama maalimada Britoola aas qaran lagu sameeyo magaalada Muqdisho aaska ayaa la rajeynayaa in ay ka soo qayb galaan madax kala duwan oo ka kala tirsan laamaha kala duwan ee dawladda federaalka Jarnaalka Allah u naxariisto ayaan leenahay wixii wara ka soo kordha adiga ayaa noqon doona qofka ugu horeeya daawada fadlan hadii aad ku cusubta Jarnaalka subscribe dheh like na saar share garay aad iyo aad u mahadsantahay